wardegdega daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay waxay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Hiiraan nala daawada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gudaha u galaya godadkii kooxda qawaarjii al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan daawadayaal saad u jeedaanba waa difaacyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka saareen kooxaha argagixisada godkan waa god weyn oo ay muddo ku dhumaaleysanayeen waxaana dabcan gudihiisa lagu dhex arkayaa agab kala duwan oo ay uga carreen difaacidan waa difaacadii ugu ballaarnaa ee kooxaha nabadiidka laga saaray daawadayaal ciidankuna waxa ay ku guuleysteen inay halkani ay ka sifeeyaan waa u jeedaan waa dul taagannahay waana xilli duhur ah dabcan goobahan waxaa lagu xuriyey kooxihii nabadiidka ahaa maanta difaacyadii ugu badnaana waa laga saaray ciidankuna guulo waaweyn ay ka gaareen godkana u jeedaan waa god muddo dheer ay ku dhumaaleysan jireen godad kale ayaa jira sidoo kale goobo kale ayaa idin geyn doonaa waa mahadsantihiin waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo saakay howlgallo ballaaran ka sameeyay deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Hiiraan qaasatan deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolkaasi warka saaka halkaas aynu ka helin ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee difaacidii ugu weynaa ay kala kaceen kooxaha argagixisada al-shabaab waxa saad muuqaalada aad ku aragteenba waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u daatay dhufaysadii nabadiidku ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan warka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay halkaasi ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu dagaalamayo kooxaha nabadiidka ee al-shabaab degmooyinka Maxaas iyo Moqokori iyo tuulooyin hoostaga ay ciidamadu howlgallo ballaaran ay ka wadaan waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ay tuulooyin hoostaga degmada Moqokori ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo lagu burburiyay difaaca nabadiidku halkaasi ay ku lahaayeen mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir la sameeyay ayaa wuxuu inoo xaqiijiyay saakay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay gudaha u galeen dhufayso kooxaha argagixisada ee al-shabaab ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Moqokori waxayna halkaasi ciidanku ay jab xoogan iyo khasaare ay ku gaarsiiyeen nabadiidka al-shabaab warka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalkii saakay ay ku soo furteen hub iyo saanado military oo ka carray nabadiidka al-shabaab Hiiraan waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ee howlgalladu uga wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay wararku intaasi ku darayaan in ciidanku saakay ay sidoo kale howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaano u dhaxeeya gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose deegaanadaas oo lagu kala magacaabo Mabaax iyo Muqliga Cali waxa halkaasi ka dhacay howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka ee al-shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada Maxaas qaasatan deegaan lagu magacaabo Istiqtiir iyo Ceel Gorof waxayna halkaasi ciidamadu ay ku baacsadeen koox ka tirsan nabadiidka al-shabaab Istiqtiir iyo Ceel Gorof waa wadada xiriirisa Maxaas iyo degmada Bulxo waxa halkaasi ka dhacay howlgalkii ugu cuslaa iyo dagaalkii ugu cuslaa halkaasi ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ay kula galeen kooxaha qawaarjii al-shabaab saad muuqaaladeena baad ku arkaysaan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaaf wareegaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan qaasatan tuulooyin u dhaxeeya degmooyinka Wabxo iyo Maxaas waxay halkaasi ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka ee al-shabaab saraakiishan la xiriirnaya waxay noo xaqiijiyeen in saakay howlgalku uu ahaa mid culus ciidamaduna ay ku waabaristeen goobo ay ka talin jireen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab xalay horena ciidamadu ay howlgallo ballaaran ay sameeyeen sarkaal magaciisa ka gaabsaday ayaa wuxuu noo xaqiijiyay in ciidanku ay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaanka lagu magacaabo Istiqtiir iyo Ceel Gorof oo xiriirisa wadada u dhaxeysa Goobxa iyo Maxaas waxaana halkaasi lagu qaarijiyay 8 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda al-shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa 22 difaac kala kacay kooxaha qawaarjii al-shabaab waayadan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa si dardar looga soconayay howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Cali Gani oo hoostagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo lagu tuunsan yahay ama ciidanku ay ka war heleen inay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan kooxaha qawaarjii al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay waxay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada Maxaas waxayna ciidanku ay weerareen koox ka tirsan nabadiidka al-shabaab kuwaas oo ku geelqalinayay tuulooyin hoostaga degmada Maxaas waxayna ciidanku ay ka dul dhaceen kooxdaas oo doonaysay inay fariisimo ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin gobolka Hiiraan duulaan culus ay ku soo qaadaan xogta oo ciidanku ay hayeen ayaa waxa ay ka dul dhaceen isla waabarigii saakay kooxdii doonaysay in halkaasi ay ciidamadu ku soo weeraraan waxayna ciidanku halkaasi ku laayeen ilaa 14 dhagar qabo oo ka tirsan maleeshiyaadka nabadiidka ee al-shabaab sidoo kale waxaa howlgalka barbar socday duqeymo xoogan oo ay wadaan
dowladaha Soomaaliya ka taageera dhanka cirka waxaana halkaasi ama duqeymahaasi ay ka dhaceen deegaanka Burdaar iyo deegaan lagu magacaabo Teedaan halkaas oo ay ku sugnaayeen horjoogayaal ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab horjoogayaal ajaanib isugu jira Soomaali ayaa goobtaasi lagu beegsaday waxaana guud ahaanba halkaasi lagu laayay kooxdii ku sugneed wararka aynu ku helayno Burdaar iyo Teedaan ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay halkaasi dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan waxayna ciidanku sidoo kale ay ku sii jeedaan deegaano hor loo lagu tuunsan yahay inay ku dhuumaleysanayaan kooxaha argagixisada Al-Shabaab guud ahaan gobolka Hiiraan waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankuna waayadan waxa ay si weyn u gaafureegayeen deegaano lagu tuunsan yahay inay ku dhuumaleysanayaan kooxaha nabadiidka Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xooggan waxa ay ka wadaan guud ahaan deegaanada gobolka Hiiraan halkaas oo ciidanku ay ka wadaan howlgallo lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka Al-Shabaab ciidanka sidoo kale waxa halkaasi ama degmooyinka Jalalaqsi iyo Buluburde ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan waxayna ciidanku halkaasi ay kaga sii duuli doonaan goobo lagu tuunsan yahay inay joogaan argagixisada wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanku haatan goobo hor laga kala wareegeen nabadiidka Al-Shabaab guud ahaan gobolka Hiiraan waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka ciidamaduna waxay howlgalladaasi ka gaareen guulaha waaweyn markan haddaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose wararkaynu ku helinay saaka ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Janay Cabdalle ee gobolka Shabeellaha tuulooyin hoostaga deegaanka Janay Cabdalle ee gobolka Jubbada Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halkaasi waxa ay ka wadaan howlgallo ballaaran iyo kuwa daraawiishta waxayna ciidamadu ay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka Al-Shabaab Janay Cabdalle waxay hoostagtaa gobolka Jubbada Hoose tuulooyin hoostaga ay ciidamadu howlgallo ay ka sameeyeen mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan kuwa danab oo xiriir la sameeyay ayaa waxay noo sheegeen in ciidanku ay guud ahaanba ay ku dhaqaaqeen dhowr tuulo oo isku urursanayeen nabadiidka Al-Shabaab Janay Cabdalle iyo tuulooyin ku dhawaayay ciidamadu howlgallada ay ka sameeyeen sidoo kale howlgallada waxay si xawli uga soconayaan deegaanka Baarsanguuni oo ciidamadu howlgallo ballaaran ay ka wadaan sidoo kale ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa howlgallo ballaaran waxay ka wadaan deegaanka Cabdalla Biroole ee isla gobolka Jubbada Hoose waxaana halkaasi ay ciidanku ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo lagu la dagaalamayo kooxaha nabadiidka Al-Shabaab Jubbada Hoose waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallada uga wadaan maalmahanba ciidamadu waxay howlgalladaasi ay ka gaareen guul aad u sarreeya markan haddaynu aadno gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan tuulooyin hoostaga degmooyinka Aadan Yabaal iyo Masaajid Cali Guduud ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay ku dhaqaaqeen dhowr tuulo oo hoostaga degmooyinkaasi waxayna ciidanku ujeedkoodu yahay sidii deegaanadaasi looga sifeyn lahaa kooxaha nabadiidka Al-Shabaab howlgalkan waxaa amray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Odawa Yuusuf Raagi oo ku sugan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana taliyuhu ciidan aad u tiro badan oo ka tirsan commandoska Gorgor oo kula hadlay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe deegaankaas aan hadda magaciisa aan sheegaynin sababa arrimaha ciidamada awoodeed ayuu taliyuhu waxa uu amar degdeg ku bixiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ay guud ahaan bay ku dhaqaaqaan goob kasta oo lagu tuunsan yahay inay ku dhumaleysanayaan nabadiidka Al-Shabaab howlgalkan waxaa loogu magac daray howlgalka duufaanta waxaana si weyn uga qayb qaadanaya ciidanka hay'adda ee nabad sugidda ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale howlgalka barbar soconaya ama ciidanka caawinaya ciidanka deegaanka oo halkaasi dhaqdhaqaaqyo xooggan iyaguna ka wada ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa sidoo kale tuulooyin hoostaga degmada Ceeleer waxa ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka Al-Shabaab Bashiir Qoran oo ah taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee halkaasi ku sugan ayaana howlgalkii saaka ka wareysanay wuxuu noo sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saaka howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen tuulooyin deegaano hoostaga degmada Ceeleer ee gobolka Galgaduud waxa uu sheegay in deegaano dhowr ah ay kaga dhaqaaqeen ama dhowr jiha ay kaga dhaqaaqeen tuulooyin hoostaga degmada Ceeleer isagoo carabka ku dhuftay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay maalmahanba halkaasi ka wadeen howlgallo sifeyn ah oo lagula dagaalamayo kooxaha nabadiidka Al-Shabaab Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud waxay si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed khaasatan Shabeellaha Dhexe waxa maalmahanba deegaan lagu magacaabo Jabad Gudani ka soconayay howlgallo ballaaran duqeymo lala beegsanayay kooxaha nabadiidka Al-Shabaab warkaynu ku helino saaka ayaa waxay sheegayaan halka in xalay tuulooyin hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe khaasatan deegaanka Jabad Gudani deegaano u dhow halkaasi laga sameeyay duqeymo xooggan oo lala bartilmaameedsaday kooxaha nabadiidka Al-Shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa war qoraal uu ka soo saaray duqeymihii ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu talisku xuseen halkaasi lagu beegsaday 29 nagar qabo oo ka tirsan kooxaha argagixisada Al-Shabaab taliska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
ay guud ahaanba dhowr jiha ay kaga dhaqaaqeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka ciidamaduna howlgalladaasi waxay ka gaareen guulo aad u waaweyn daawade hadduu fadlan janalkeena kusoo gaaro subscribe inoo saar si aad ula socotay guulaha ciidanku ay gaarayaan waa mahadsantahay